maanta waxaan isla eegaynaa muuqaalka run ahaantii adduunka dhan ay ka wada hadlayaan kaasi oo ku saabsan Adam iyo Sabrina oo ahay laba labaano oo muslimiin ah oo ku xiran baraha bulshada kuwaas oo heystay ka badan 500,000 oo follower ah adiga half million oo follower ah lamaanahan ayaa waxay noo soo gudbi jireen ama la wadaagi jireen dadkooda sidaad arkaysiin farxad jecel wiilka sa arkaysiin indhiisa waxa ka muuqda jecel gabadha sidoo kaleeto sidii ugu dhaganta marnaba ma aragtay ma la isdhihi kara macnaha labadan lamaana ayaa waxay ku nool yihiin silic haddaba gabadhan ayaa waxay soo gashay live taasi oo noo cadeysan nabaro badan oo jirkeeda ku yiile sheegtana 8 bilood ay la nooleed Adam inay kula nooleed saxariir iyo silac xijaabkana uu ugu soo gali jiray si oo u qariyo nabarada iyo dhibaatada uu geysto sida arkaysan dhaawac baa isheeda ku yeelay timaheeda ay gacanteeda ku sidaa ay leedahay aniga ayuu iga goro iga rifay dhib fara badan ay sheeganaysaa jirkeeda waa waxaas madmadow message oo soo qoray oo ku caaynayo oo ku aflagaadenayo taas walaalay maxay ku cadeynaysaa adigi daawanayso waxa laga yaabaa inaad la socoto lamaana fara badan oo baraha bulshada ama Soomaali ha noqdaan amba ajaanib ha noqdaan oo la socotid oo jaceelkooda noo soo bandhigaan hadii ay isiinayaan dabcan hore waan u aragnaa lamaanayaal badan oo sidaas oo kale soo gudbi jiray noloshaas dhan ay noqotay nolol iska qayaali ah nolosha dhabta ah ma soo bandhigaan sababta ay taanaga Soomaali ayaan dhaqan ayaan leenahay sida dhabtaana labadan lamaano waxyaalo waxa jira in la wadaagi karin baraha bulshada hortooda iska daa baraha bulshada hortooda xataa dadka guriga kula nool hortooda insan iskula sameey karin marka hadii wax aad dadkii adina guriga aad kula nooleed hortooda aad kula sameey karin aad la soo istaagta baraha bulshada taas waxay cadaan inay tahay mid been ah nolosha dhabta ah walaalahay waxa ogaan kara waxay tahay labada qof ee isla nool dadka guriga kula nool iyo Allah subhanahu wa ta'ala waliga iyo Allaha laba qof oo lamaana aad baraha bulshada ku aragtay ha ku eeba toogan inuu Ilaahay ma aragtay ku siiyo noloshooda oo kaleeto instead bedelkeeda waxaad ku eeba toogtaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala sida adiga aad jeceshaa lamaanahaaga inuu Ilaahay ka siiyo oo ma aragtay shariicada islaamkana waafaqsan dabcan inta aad qof kaleeto noloshaada ala barbar dhigileed muuqaalkan wuxuuna barayaa taas inaad seen biri qofna aadan ka maseerin baraha bulshada ku jiro oo ma aragtay jecel ama gift ay siinayaan soo bandhigaan maxay la hore ayaa loo arkay Soomaalidana hore aan ugu soo aragnay ajaanib fara badan hore ay u dhacday aniga waxa jiray kada cadaan ahay gabadhana madow ay ahayd laba xunuga isku dhaleen aad iyo aad isku jeclaayeen lamaana isku faraxsan ay ahayd waa iska daawi jiray sababta ta vlogs iyo waxyaalahaas ay sameey jireen wadamada ay tagi jireen dalxiis labadii qof saa u daawanay isku faraxsanaa maalmaha kamida noloshii ku kala boodeen waxay sheegeen inaysan farxad ku nooleen hal habeen farxad ku seexaneen ma aragtay dhibaato fara badan run ahaantii la yaab ay ila noqotay dadkii ma aragtay dalxiiska isla aadayay shalay faraxsanaay sidee bay saan ku dhici kartaa soo waxay taas ku cadeynaysaa inay tahay nolosha oo social media iyo nolosha dhabta laba ay kala tahay adiga haday jirto lamaana aad hore u daawa jirtay markii dambe aad gadaal ka ogaatay noloshooda inay ahayd nolol khiyaali ah commentiga nagu la wadaag haddaba inta muuqaal kale ku kulmeyno oo walaashin jiijo idin leh Allah macaka fi amaanillah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muuqaalka soo kori doono midig ama bidix YouTube-ka wuxuu u maleynayaa in aad ka heli doonto soo daawo